waxaan maanta halkan ku qaban doonaa shirka jaraa'id aan nooga barateen aan bishiiba ama mar ama laba goor soo qaban jirnay kaasoo maanta daaran oon aada ugu hambalyeynayo isku xidhnaanta ay muujiyeen dhammaan dhalinyarada reer awdal ee ka dhiidhiyey cadaaladda maanta ka jirta somaliland iyo saamiga beelaha intaba aada baan ugu hambalyeynayaa annagana na dhiirigeliyey ina mar labaad iyo mar saddexaad baanu hadalno aada iyo aad baan idinku hambalyeynayaa waanan kana hari mayno waynu ku celcelinaynaa waan wadanaa hadalkaas ilaa intayna damsan ay dhaguhu u furmaana waynu wadanaa hawshaa waan ku daba soconanaa taas waxaan leeyahay aniga iyo intay la mid iheba yani maanta adduunku qoris kuma qaatee waxa lagu wada hadlaya waa qalin iyo afbaa lagu wada hadlaya maanta cidda kula dagaalka kugula jirtaana afbaa lagugula jiraa iyo qalin baa labadaba lagugula dagaalamaya qalinna dee dadkii beerayba ina ku ha waxaan leeyahay beelweynta kadib guursi waa beel caan ah waa beel la yaqaano waa beel buugga taariikhda soomaalida kaga qoran baal dahaba balse 28 sano oo ay somaliland jirtay lama hayo magacii beesha kadib guursi meel ka baxay maadaama 28 sano ay somaliland jirtay magacii beesha kadib guursi meesha uu ka baxay la leeyahay waxaynu isweydiinaynaa halkee ayay martay xaaladii magaranaysa aaway aqoon-yahanadii samaroon aaway aqoon-yahanadii reer awdal war xaalkani siday wax u socdaan eegan mayno 28 sanadood hadii xaalka noocan inaynu kusii jirno idaynu hore ugu soo jirnay haddana kusii jiri mayno waxaa dunidu isweydiinaysaa oo mas Soomaali meesha ay degan tahay ay isweydiinaysaa war halkee ka baxeen samaroon waa aqoon-yahankii Soomaaliyeed waa ifteenkii ummadda Soomaaliyeed 28 sanadood lama hayo Somaliland Somaliland ma inaga wax ku weynay mayada wax nagu heshay Somaliland waxaan aaminsanahay Somaliland inay samaroon qasaare ku qabay 28 sanadood waxa lagu oranayaa nabadgelyo aad haysatay war nabadgelyadu reer awdal oo kaliya wadan ma ahay Somaliland oo dhan bay dan u tahay nabadgelyo la haysatay magacaaga lagu baabiinayana Soomaalidu waxay tiraahdaa nin kabihiisa toloso adiga kafankaaga tolaya waxa la reer awdal Somaliland kafankiinu bay toshay idinkuna kabaha Somaliland ba tolosan idina kabihiina toshay xaaladda noocan aan ku sii jiri mayno waynu ka dagaalamanaa waynu musabixi madaxweynaha Somaliland baa maalin dhaweyd wuxuu yiri duqaadku waa doqoniimo alla ilaahay anaga doqoniimo ma haysa reer awdal bay doqoniimada aad muusoo deydaysaa haysaa waxaan maalin dhaweyd arkayay oo maanta inaan ka jawaabo aan ahayn oo muddo waqtiga igu simay odayaal reer dilaad ah oo intay hotel soo istaageen yiri waxaanu qaadananaa anagu saamiga awdal oo taageeray muuse iyo maanta xukuumaddiisa oo beesha reer nuur awliba waxaan doonayaa inaan muuse baro reer nuur row muuse muxuu yahay muuse waa ninkii Gabley markuu rag uga yaacay ee looga baxay Gabley iyo dilaba dumarka kala soocay muuse waa ninkii dumarka meesha ku laayay waa ninkii dumarka intuu kala soocay yiri war intani waa dumar waaweyn oo dhalimaysa iska sii daaya intii uu isiri wuxuu bay dhalayaan intii geesi reer nuur dhali lahayd hal dilo yiri muuse waa ninkii walaashii gurigeedii intuu soo galay iyadna istiri waa walaalkaayo maanta dib waa magaranaysaa gurigeedii intuu soo galay oo walaashiisii reer nuur ku qabay ciidanka magaranaysaa caruurta reer nuur ka lahayd yiri xaliiboy caruurtaadu waa imisa ee la yiri waa 7 sal uu yiri waa imisa raga kaasa la yiri shan baa magaranaysaa hablooho laba rag ah labadii rag ah aabood bay raaceen shan rag ihina markaa meesha hableyna ma jirin laba bay habluhu hayna saddexda kale la sheegaya laga qarinayaaba rag bay haayeen yiri haye rag gurigii intuu soo galay raggii diracyada looga xidhay inamadii uu abtiga u ahaa baa diracya looga xidhay muuse waa ninkii walaashii ilmaha yar ay xambaarsan tahay intuu kala degay yiri intuu geesi roonuura noqon lahaa canug yaroo saqiiray ha noqday ee gowracay muuse weyn waxaan la yaabanahay hadda waa aniga taayla yaabtay maanta inuu ninka muuse waa kii uu wixii iska bedelay malaha kursigana wuxuu ugu fadhiistay muuse argoosi ninka maanta muuse markaa taageerayay madaxweynaha Somaliland ee muuse wuxuu yahayna sida u og taas waa waxaan qalbiga saliimkii qaadan karay war samaroonka kale waa la oran karaa samaroonka kale aan isa soo gaadhinayna isku deegaan ahayn muuse haba yiraahdaa waa laakiin inaad adigii caruurtaada lagaga qarinayay qolalka duruucda loo xidhay aad tiraahdo muuse aan taageersanahay
oo waxaan la yaabay waxa maanta magaalada Kaasal ila jooga inamada Muuse abtiga u ahaa ee magaalada Gabley intuu ugu soo galay duruucda loo xiray leeyahay Xaliima habluun bay wada dhashay oo maanta igu yiraahdo abtiga afka ka jeedi horta bal waxaan isbarbar dhigayaa taa iyo kuwii aniga waxa ina abtiga ruma aqarin maayo maanta tusaale aan soo qaadanaya Laab Saalax waa ina abtiga ruma raawo salaamaya marka horeysa mar labaadka waxaan leeyahay Laab Saalax waad xuntahay in oran ma caayo laakiin waxa dunida waxa kala jirta wax la yiraahdo xayn iyo xineen xaynka iyo xineentu waxay kala yihiin xayn waa ree abtiga xineenna waa ree tolka war kala garo markay labadaasi is hayaan de xayn waa halkiisa ku jooga xineen baa tahay raaci Laab Saalax xasan dhuxul Laab Saalax aniga waan abtiga waxa ka weyn Axmed Salebaan dhuxul oo ahaan jiray afayeenkii dawladda Siiraanyo madaxtooyada Siiraanyo wuxuu dawladda Siiraanyo ka hor Axmed Salebaan dhuxul wuxuu ku ahaa madaxweyne daahirayaal macaarid ku ah boqol jeer baa gurigiisa loogu tago lagu yiri abti war abti maxaa ku helay baa leeyahay waxaan aduubas iyo waxaan aad wadwada abti maxay tahay inaad loo yaaqay umada kale waxay sheegtay abti aad inaad xishooti ma fahamtay xishood buu halkaas soo dhigay oo nin xiniin sheegtay buu noqday markaa Laab Saalax iyo Axmed Salebaan dhuxul labadaba waxaan ku sheegay iyagoo waaweyn u bay arkeen beeshan ay ka soo jeedaan labaduba waxay ku soo koreen magaalada Boorama waxa laabta u tuman jiray aabahay baa kamid ahaa odayaasha oran jiray waa inaan abtiga joogay la hadli kara oo laabta u tumanayay ciid iyo ciriiri kumay soo korin rag baarka loo furiyay ku soo koreen waxaan la yaabanahay inamadii aan baarka u furanay annagu aanu dhalnay soo korenay inay maanta xiniin noo sheegtaan oo raabtiga soo afuufaan kuwii ciilka iyo cadhada ku soo koray ee guryaha loogu magaranaysa duruucda loo geliyayna ay maanta xiniintii iyo xaynkii kala garan lahayn taas horta wax la yaabo waxaan leeyahay beelweynta reer nuur horta Muuse waa ka anigu nin reer awdalaanahay nin reer dilaadan gaar ahaanahay nin reer nuuraanahay Muuse waa nusnaqaana wuxuu yahay samaroonka kale isma yaqaanaan laakiin inagu waa nusnaqaan Muuse inuu inaga argosto mooyaane inuu inaga maanta aan iraahdo madaxweyne inuu yahay horta inaga ma ogeeyo inaga waayo sababta inaga inaga argoosanaya maanta waxaad ogtihiin konton agaasimo reer nuur maalinkii la israaciyay Muuse hal agaasimo reer nuur maanta meesha kuma harin ma fahanti taas waxay ku tusaysaa waa cadeyn iyo argoosi inta waxa kula dardaarmaya odayaasha ama dhalinyarada ha noqotay reer nuur baa intaas gaar u tahay wax la reer nuur oo maanta inaad tolkiin ka hortimaadaan oo samaroon ka hortimaadaan maalinta waxa dhacday hadda ka hor waxaan taariikhda ku maqlay Sacad Muuse iyo reer nuur oo is haysto dagaal la isku hor fadhiyo ayaa reer nuur waxa u soo gurmaday baa la yiri bursigii galbeedka oo ku yiri waanu taageerana odayaashii reer nuur baa ku yiraahday war waa inaan yaabtigi baanu nahay iska noqda odayaashii galbeedkeega bursiinta xanaaqeen bayna dhiladu dhashay inaga daa maanta tiiba taagan maanta waxaan idin leeyahay oranina inaad ka hor timaadaan oo maanta waxaynu la mabda iyo mowqaf nahay beelweynta gadabuusan la mid nahay maanta hal mid baynu nahay yeeli mayno in la kala qaybiyo waxaan leeyahay odayaasha laftoodana waxaan leeyahay waxa soo dhex martay waxa weeyaan waa fanjadii jeegaantu ay waday bay ahayd baa leeyahay odayaasha rays ka hadlayna inta iyaga waxa ku soo dhaafaya reer dilaad aan u soo noqdo iyo dhalinyarta anagu dhalnay abtiga u nahay ficilka ku jira iyo kuwa iyagu noo dhaleen ee bilaa ficilka ah intaas aan ku dhaafaya waxaan u soo noqonayaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxa tiri siyaasadda maanta Muqdisho taalaabo mid laga mataga baa tiri maanta Somaliland bay taalaa waana hoos joogtaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxaan leeyahay adeer kuguma ogin nin cabsada oo nin maanta xukuumad iyo xalitoona cid ka cabsada kuguma ogi adigoo Mareykan dawladda dhan ee Mareykanka dhex joogaan iyo magaranaysa dastuurkeeda wax ka sheegayso kala qasqasayso waxa doonta sheegaysa maanta Somaliland waa dawlad qiyar oo qabiil ku dhisan marka siday wuxuu jiraan barafsi su'aashaasi aday kula jirtaa loo jawaab ma waxa kuna oran maayo de dhalinyarta yar kugu dari maayo ku oran maayo barafsir wuxuu kala garan waaya xaynki iyo xiniintii oran maayo tabashadii tolka ma waxaad ka raacday abtigay ma abtinimaad tabashadii tolka aad ku raacday maana kugu arag shaashada ado tabashada reer awdal iyo saamiga midna waxba ka hadlayo bariyahan kuma hayno haddaanay abtinimadu ku qarinin marka waxaan ku leeyahay barafsir jawaabtaada aan ka suganaa taana waxa ku dhaafay Axmed Ismaaciil Samatar halu soo noqdo waxaan soo noqonayaa Maxamed Kaahin oo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maalin dhaweyd isagoo khudbad jeedinaya oo jooga la hadlaya jaaliyadda Sacuudiga ayuu wuxuu yiri tusaale wuxuu soo qaatay Eritrea wuxuu yiri Eritrea soo markii ay Itoobiya ka goday waxa ka dhisnay buuri qurbaha
marka dadkiina jaaliyadaha qurbaha soo dhisay bay ka dhisnaydeen Somaliland dhamaanta halkii bay maraysaa buud waxa leeyahay kaankii kaas hadalka odhan lahaa ma aha wasiirka arrimaha gudaha ee waqtiga aad sheegaysay ee Eritrea wuxuu ahaa nin cadaalad ah waxa hay dawlad cadaalad ah waxa hay dawlad dadku u sameeyay adigu Somaliland cadaalad ma u tahay maanta wasiirka arrimaha gudaha tahay ma ku haysaa cadaalad waa maya waxaynu ognahay xaladkan waa nin reer Burca wuxuu ka soo jeedaa bariga Burco maalin walbana guri cusub bay dawladda xariga ka jirtaa oo waliba sayrici ka soo jira xariga galbeedka Burcana maalin walba guri baa la soo xiraa iskuulkaasi wuxuu ka soo jeedaa galbeedka Burco soo xira bariga Burcana iskuul cusub baa laga dhisaa waad ogtiina labada beelood ee bariga Burco iyo bariga Hargeysa dega bariga galbeedka Burco maanta jigada laga iibinayo waxa la siiyaa 15,000 ninka haweeneysa galbeedka Burco ka iibinaya jago nin habar jeclaa 15,000 dawladdu intay maal gelisaa laga siiyaa reer baa laga ambu bixinayaa meeshan Somaliland horta waa maalinta xaalad noocaas socota ninka wasiirka arrimaha guduhuna waa ka xaalka noocaas ku jiray haddana maanta cadaalad sheeganaya isagu aan u soo noqdo Somaliland waliba aan siyaasadeeda u soo noqdo waxa dhacday in la ilaa Cornel Caare waa ninka cadaalad darro intuu tirsaday buuraha fuulay kan cadaalad darradiisuna waxay saarnayd waxa loo magaranaysaa cadaalad fali waayay beesha aan ka soo jeeday iyo beesha isleenayeen Cornel Caare wuxuu ka soo jeedaa habar Yoonis gaar ahaan wuxuu ka sii yahay magaranaysaa Sacad Yoonis nimanka la yiraahdo Sacad Yoonis iyo waxay isleenayay dagaalku u dhexmaray beesha u dhexmaray waxay Sacad Yoonis iyo Biciido reerka loo cadaalad fali waayay Caare ka baxna taasay ahayd maanta Somaliland ma waxay waajib u lahayd in ciidanka Somaliland ay maanta jooga sanaaga la leeyahay Caaraha soo qabtaan korneelka hogaaminaya waa nin Biciido Caarana waxa la noo cadaalad fali waayay buu dagaalkiina dhexmaray Biciido in nin Biciido ah oo waliba ciidan dadkii uu ka cabanayay inta ciidan loo dhiibo la yiraahdo waliba la hubeeyo la yiraahdo war soo qaban ninka taasi waxay tahay Somaliland beelun bay beelu hubeynaysaa xaaladda maxaad u aragtaan dhalinyarada reer Somaliland oo meesha doontaan meelsha doontiba aad joogtaan su'aashaasina idinkeedii tala maxaad u aragtaan Somaliland kolka ma beel bay beelu hubeynaysaa ma cadaalad bay nabadgeliyaysa wada oo dad bay doonaysaa inay damiso mise dad bay hurinaysaa su'aashaasina idinkeedii tala aan halkaa ku dhaafataana waxaan u soo noqonayaa beesha habar Yoonis waxa la hore waxa tiraahdeen dayriyaal wuxuu ku fadhiyay dablibax horta hadalkaasi Samaroon wuxuu ku ahaa deelqaaf waayo Samaroon isagaaba libaax kale inuu dhibti ku fadhiisto uma baahan haddaanu libaax aan ahayna waxa tusaale ku ah inuu Samaroon libaax yar waxa ku ah maalinta nin siyaasi oo reer awdali hadlo Somaliland oo dhan baa waxa ku wada hadasho wax la moodaba inay dawladdu dubayso waa inay 10 beesha dhixii u soo jawaabaan haddii sanaag iyo gobolada kale oo dhan laga hadlo iyo gobolka awdal ninka ka hadla way kala saameyn badan tahay Somaliland ka awdal ka hadla kaga xanuun badan in 10ka gobol kale in laga hadlo oo markaas ay 100 nin u soo jawaabaan ama beesha dhixii ama gobolada kale taas waxay leeyahay waxay intuusaa in Samaroon isagu libaax yahay ma fahanti kasi socda libaax haddaad maanta libaax idinku hore u sheegateen war waan idinku habaleenna waaba idinku taageeranay maanta waxa idinka baahan Cornel Caare tirayaal aad ku fadhiisinaysaan maanta Cornel Caare idinka baahan waxa kale oo idinka baahan ninkan musharax ee xisbiga wadaniga armalka mooday annagana khasaariyay